maamul goboleedyada laga hadlay xaqiiqan rabnaa inaan isku sheegno aan Soomaali maxamedna u sheegno 5 maamul goboleedaa jiro beesha kaliya aan maamul goboleed lahayn waa beesha shanaad marka leedihiin maamul goboleed xuquuqda go'aan hal looga soo gaaro beesha shanaad yaa ku matalaayo mise waxaad soo karkarisaan waxa halkaan oo keenaysaan aad nagu dul akhrinaysan adeerayaalow golo shacab aan ku wada jirnaa dulmiga maamul goboleed uu geystay inaga soo aragnaa caanayna waxaan aragnay guddi kaste xataa hadii waxa weeyaan cid dhul xaqiisa la soo magacaabayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka cidooda soo magacaabato waa xaqiiqo jirto aan waxa weeyaan la gambanaynin marka maamul goboleed annaga nama soo dooran shacabana soo doortay golihii shacabka nahay halkan ayaa go'aan loo gaaray waana hay'adda ugu sareysa ee sharci dejinta xisbiyada siyaasadeed laftirkooda hadeertaan ma u diyaarsan yihiin ma xisbiga caalamka la yaqaanay aqoonta iyo cilmiga iyo xirfada ku dhisan ee dhameystiran ee uu cad yihiin qofka madaxweyne u noqon lahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo warfaafinta dhalinyaradii xuquuqdoodii waxa weeye ku cadeed dumarka xuquuqdooda ay ku cadeed mesela xisbiyada oo briefcase-ka qaarkooda waxa weeyaan boosada shandada isaga wito hal qof oo go'aan ka gaaro uu wuxuu rabo ku sheego ama dadka qaarkooda xataa aysan madaxweyne hankooda u sanahayn inay wasiir ku helaan bas markay wasiirka helaan xilka waxa weeyaan isaga tago ama ku raadinayo mashaariic xisbi cilmiyaysan ilaa laga gaaro sheekada xisbiga ah ee mararka qaarkooda xataa aanan ahayn xisbi ahzaab Soomaaliyeed ee xisbiyo jufooyin gaar ah iyo beelo gaar ah oo aan lahayn dhaqaale oo rasmi ah waxa lagu ogaa ma gali karaan muxuu ahaa ma noqon karaan ahzaab siyaasadeed diyaar loo ma aha xisbi maanta keeni karo 10,000 oo cod waxa weeyaan ma jirto si ku meel gaar ah u register gareysan yihiin lamana dhihi karo berito xisbi siyaasadeed oo rasmi ah oo dalkan matali karo waayo lama dhihi karo welina waxa weeyaan lama gaarin laakiin waxaan leenahay hadeertaan sharcigii 0.5 ka ah ama 4.5 kii dulmiga ahaa ee la leeyahay ha lagu dhiso waxa way ahzaab ama ha lagu saleeyo doorashooyinkan waxa dareemaysaa in aanan wili laga bixin ayna adag tahayba in laga baxo waxay taagan tahay marxaladan 0.5 kala sheegayo waa heerka Quraysh ee ka taagnayd khamrada oo kale ee saddexda mar waxa weeyaan marna la yiri la taqrabu salaata wa antum sukara marna la yiri muxuu ahaa khamrada yasalunaka an al-khamr wal maysir qul fima ismu kabir marna la yiri inma al-khamr wal maysir wal fajtanibuhu wili lama gaarin waxaana cadeynay hadii xisbi la dhihi lahaa xisbiga automatically ayadan qabiil lagu saleenin ama doorashada la dhihi lahaa doorasho ahzaab waaye si toos ah waxa loo aad lahaa doorasho ahzaab laakiin lama aadin waxa la yiri wili baalihiina way jiraan ahzaabna way jiraan waaba cilmiba naga weynba adduunka aanan ka jirinba oo waxa weeye annaga aan keenayno caalamkii aan ka cilmi badannahay kana xikmad badannahay adeerayaalow 0.5 kan aad marka horeba dulmiga ku soo heshiiseen laga bixi maayo إلا أحزاب رسمي لو جاراي استجها لقد ما ذا أو مال أنقص حرنا كذب أنو قدرنا أحزاب أو لله وللوطن ولسنا بالله توفيق